Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya ay howlgallo ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolkaas, halkaas oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Ciidamada ayaa howlgalka waxay ka sameeyeen deegaano hoos taga degmada Balcad, waxaana saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ay sheegeen inay la wareegeen deegaano dhowr ah oo ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab. Deegaanada ay ciidamada dowladda la wareegeen ayaa waxaa ka mid ah deegaanada Shanlow, Sarsare, Xanshooley iyo Cadayga, halkaas oo ay Al-Shabaab ku sugnaayeen dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Taliyaha qaybta 27aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Jenaraal Axmed Maxamed Cali Sowtre Disho ayaa sheegay in howlgallada ay sii socon doonaan ilaa iyo inta ay ka saarayaan Al-Shabaab. Waxa uuna sheegay in fariimo kala duwan ay uga imaanayaan dadka shacabka ah ee ku sugan deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab. Qaar ka mid ah shacabka ku nool deegaanada ay ciidamada dowladda la wareegeen waxay sheegeen inay haystaan dhibaatooyin kala duwan sida waxbarasho la'aan, caafimaad darro iyo dhibaatooyin kale, isla markaana looga baahan yahay dowladda federaalk Soomaaliya inay u soo gurmato. Ciidamada dowladda ee deegaanada hoostaga degmada Balcad kala wareegay Al-Shabaab ayaa waxa ay ahaayeen kuwii loogu talagalay sugidda amniga wadada xiriirisa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad oo dhowr jeer ay weeraro ka geysteen Al-Shabaab. Nasteexa Cabdulqaadir Xasan, TV-ga caalamiga Kalson, magaalada Muqdisho.